Ramadaan wanaagsan kula wanaagsan khiyaarta nala socotay dalkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan. Dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa bilowday dhowlatus ashqaraar leh inay ka samayso qaybo ka mid ah marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz iyadoo ay wehlinayaan ciidamada waddanka Ruushka. Laba fariin oo istiraatiiji ah ayaa halkan laga dirayaa oo ku socda waddanka Mareykanka xilli ay soo baxeen xalay warar sheegaya in dabayaaqada isbuucan dowladda Mareykanka iyo wasaaradda dagaalka ee Pentagon-ku ay qorsheeyeen weerar suuragal ah oo lagu qaado gudaha waddanka Iran dhamaadka isbuucan. Haddaba arrintan cusub sidee loo fasirayaa hadalkan ka yimid dowladda Iran iyo weliba tallaabooyinkan ay qaadaysana muxuu micnaheedu noqonayaa? Barnaamijka ayaan insha Allah ku daawan doontaan caawa haddii uu Rabbi saamaxo. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trumpna $7 bilyan oo dollarka Mareykanka ayuu caawa ku arooriyey gogol uu ku fidiyay magaalada Washington DC ee waddanka Mareykanka. Lacagahaas ayaa inta badan waxaa bixiya wadamada khaliijka, waxaana ujeedadooda uu yahay in golaha nabadda oo hadda tartan lala gelinayo qaramada midoobay la doonayo in lagu maalgeliyo kuwaasi oo si gaara u maamuli doona magaalada dagaaladu ay muddada ka taagnaayeen ee Gaza. haddaba dowladaha lacagta bixiyay ujeedada lacagtan laga leeyahay iyo weliba waxaynu eegi doonaa mustaqbalka magaalada go'doonsan. ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Benjamin Netanyahuna waxa uu ku waramay in haba yaraatee wax dhismo ah lagu samayn doonin magaalada Gaza ilaa inta hubka ay gaadaha u suran yahay buu yidhi dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ah ee Xamaas. ra'iisul wasaaraha waddanka Pakistan Shehbaz Sharifna waxa uu ku dhawaaqay in la gaaro xilligii heryada gumaystaha laga dulqaadi lahaa waa sida uu yidhi shacabka Falastiiniyiinta. arrintan ma waxay ka dhigan tahay dowladda Pakistan in ay si toosa u faragelinayso sida xalay ku warameen wakaaladaha wararka ee CNN iyo Axios oo labadaba ka soo baxa waddanka Mareykanka? waxaa la ogaaday suurtagalnimada in dowladda Mareykanka dabayaaqada isbuucan ay qaadi karayso weerar ka dhana dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. arrintan ayaa waxay ka dambeysay markii Trump qubrada amniga ee Mareykanku uu kala yeeshay arrimahan shirar isdaba jooga, isla markaana maalmihii lasoo dhaafay hubka iyo diyaaradihii ugu badnaa uu keenay gobolka Bariga Dhexe. ilaa iyo 2 markab oo kuwa diyaaradaha xambaara iyo 50 diyaaradaha dagaalka ayaa ku sugan gobolka Bariga Dhexe. ujeedaduna waxay tahay in tallaabo military laga qaadi karayo dowladda Iran. caawa Trump oo hadlaya waxa uu tilmaamay in 10 maalin oo kale oo dheeraad ah uu siiyo dowladda Iran si ay heshiis uga gaarto arrimaha nuclearka. wadahadalka dowladda Mareykanku ay la yeelanaysana ay si dhaba ugu meel mariso. hase haatee dowladda Iran ayaa taa beddelkeeda qaadaysa tallaabooyin military oo la yaab leh, taasi oo si weyn dunida caawa looga hadalhayo. maanta waxaa dhacay dhowlatus istiraatiiji ah oo ay sameeyeen ciidamada badda dowladda Iran oo ay wehlinayaan kuwa Ruushka. dhowlatuskaas ayaa ka dhacay gacanka Hormuz, badweynta Hindiya iyo weliba xeebaha badda Camaan sida ay ku warameen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee waaweyn ee adduunka. dowladda Iran waxa ay arrintan uga gol leedahay 2 fariin oo isbarkan oo ku socota dowladda Mareykanka sida khubarada arrimaha istiraatiijiyada dagaalka bartay iyo xiriirka caalamiga ah ay falanqaynayaanba. waa midda koowaad in Ruushka iyo dowladda Iran ay dhowlatus sidana ka sameeyaan gacanka muhiimka ah ee Hormuz oo inta badan shidaalka wadamada reer galbeedka ku socda ee ka baxaya Bariga Dhexe iyo khaliijka uu maro 60% waxaa lagu tilmaamay in ay tahay in dowladda Mareykanka marka ugu horeysa fariinta loo dirayo ay tahay in Iran dagaal iyo weerar kasta oo lagu soo qaado ay leedahay xulufo istiraatiiji ah oo dagaalada la geli karaya, taas oo macnaheedu yahay joogitaanka waddanka Ruushka inay tahay fariin sidaasi loo akhrin karo. khubarada waxay sidoo kale tilmaamayaan in tallaabadan dowladda Iran ay sameynayso ay tahay in iyadoo awood leh ay haddana dhinaca kale doonayso in wada hadallada diblomaasiyadda ee dowladda Cumaan ay garwadeenka ka tahay ay sameeyaan. hase haatee tallaabooyinkan waxay noqdeen kuwo walwal gelinaya khubarada gobolka Bariga Dhexe sida gaarka uga faalloonaya oo ku tilmaamay xiisadan inay tahay mid mugdi gelinaysa wada hadallada nabadda ee gobolka Bariga Dhexe ka taagan.
madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump caawa waxa uu arooriyay lacag gaaraysa 7 bilyan oo dollarka Mareykanka oo lagu maalgelinayo hay-adda golaha nabadda ee la doonayo xilligan in tartan lala geliyo qaramada midoobay. Sida ay ku waramayso wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP lagu magacaabo, madaxweyne Trump ayaa caawa yabo lacageed qaaday oo gaaraya 7 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana haatan yoolkiisa ka dhiman 3 bilyan oo keliya. lacagahaasi wadamada bixiya waxaa ka mid ah Kuwait, dowladda Sacuudi Arabiya, Qatar iyo sidoo kale waddanka Urdun, sida khubarada halkaasi joogta ay tilmaameenba. lacagaha 7 bilyan oo dollar ayaa ujeedadoodu yahay in la gaarsiiyo baa la yidhi ilaa iyo 10 bilyan oo dollarka Mareykanka si isbahaysigaasi golaha nabadda loogu maalgeliyo. khubarada qaar waxay ku tilmaamayaan maadaama Mareykanku hanaanka u shaqaysa qaramada midoobay uusan haatan ku qanacsanayn in ujeedadu ay tahay in golahaasi la biritaaro oo awood la geliyo, iyadoo khubarada qaarna ay tilmaamayaan in isbeddelka hanaanka dunidu ay hadda arrimahani saameyn ku leedahay. 47 dal ayaa ka qayb galay kulankaasi, waxaana korjoogto ka ahaa midowda Yurub. ujeedaduna waxay tahay lacagahaasi in lagu dhiso marinka qase ee dagaaladii bacnaa 2 sano ee lasoo dhaafay. dhinaca kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa digniin u jeediyey dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran inta kulankaasi uu socday. shirka ayaa ku soo beegmaya ayay leedahay wakaaladda wararka AFP xilli uu jiray xiisad u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo weliba dowladda Iran, inkastoo ay la sii wado hadallo dadban oo labada dhinac ay u dhexdhexaadinayso dowladda Cumaan. ayuu Trump si cad ugu digay Dahaan, waxaana uu yidhi 10 maalmood ayaa lagu gaari karayaa heshiis macquul ah. haddii taasi dowladda Iran ay meesha ka saarto, waxaan qaadi karaynaa tallaabo ciidan oo saameynteeda leh, taas oo aysan ka soo waqsan karin buu yidhi dowladda Iran, sida uu hadalka u dhigay. qorshaha ciidan ee iminka la doonayo in laga dhaqangeliyo magaalada Gaza ayaa waxay tahay mid kale oo shirkan caawa si weyn daboolka looga qaaday. warbixin hordhac ayaa tilmaamaysa in golaha uu ka fiirsanayo dirista 10 askari oo caalami ah si loogu dhiso ciidan xasilina oo ka howlgala magaalada Gaza, iyo sidoo kale abuurista ciidan booliis oo cusub oo maxalli ah oo Falastiiniyiintu ay yeelanayaan. waxaa shirka ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka amuraha dibadda Israel Gideon Sar iyo wasiirka wasaaradda amuraha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa ra'iisul wasaaraha waddanka Hungary Viktor Orban iyo weliba madaxweynaha waddanka Argentina Javier Milei, oo uu Trump ku tilmaamay labadaasi waddan xulafo istiraatiiji ah oo dowladda Mareykanka si weyn ugu dhow, islamarkaana ka shaqaynaya guud ahaanba arrintan. dhiilla iyo walaac ayaa ka soo baxaya shirkan, sida khubarada qaar ay tilmaamayaan, waxaana golaha nabadda laga baqayaa in lagu soo gabagabeeyo jiritaankii qaramada midoobay, taasoo Trump uu ka barbarjeexay baa la yidhi golaha nabadda Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa. qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa shaki gelinaya hubinta iyo ujeedooyinka dhabta ah ee golaha nabadda, waxaana walaaca uu ku saabsan yahay in Mareykanku uu doonayo in golahan uu ka dhigo mid la tartama ama xitaa bedela baa la yidhi doorka qaramada midoobay, sida ay khubaradu ku doodeenba. Trump ayaa sheegay in kormeer uu ku samayn doono qaramada midoobe si loo hubiyo in ay si saxa u shaqayso. dalalka xubnaha joogtada ka ah golahan cusub waxa ay bixin doonaan lacag gaaraysa 1 bilyan oo dollar oo khidmadda xubinnimada ah, sida ay qeexayaan dalka Mareykanka. dalal ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa ka qayb galay shirka iyagoo ahaa kormeerayaal, halka qaar ka mid ah wadamada Yurub ay dhaliileen ka qaybgalkaasi. Canada ayaa laga laabtay casuumaadii la sameeyay golahan inay ku soo biirto, halka Vaticanku uu diiday ka qaybgalkaasi. waddanka Shiinuhuna waxa uu tilmaamay in golaha Trump uu sameeyo uusan wax weyn oo xiiso ah uusan haatan ku hayn in uu ku biiro, sida khubarada qaar iminka ay ku doodayaan. inkasta oo Trump lacaga malaayiin dollar ah uu aruurinayo oo doonayo malaayiin aan idhaahdee uu ku meel mariyo dhismaha golahan, haddana ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa si cad oo aan gabasho lahayn waxa uu sheegay
in aanu jiri doonin magaalada Gaza in la dhiso oo dayactir iyo dib u dhismo lagu sameeyo deegaankii burburay ilaa inta qoriga deegta uu saaran yahay buu yidhi dhinaca Falastiiniyiinta ee gobonnimo u dirirka ah ee geylamaya. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Khamiistii sheegay in aysan jiri doonin wax dib u dhis ah oo lagu samaynayo marinka Gaza ilaa laga xaqiijiyo in gebi ahaanba hubka laga dhigo Falastiiniyiinta. Hadalkan ayaa yimi iyadoo saacado ka hor furitaanka shirka uu hareeyo baa layidhi waxaa loogu magac daray qalalaase xoog leh. Golaha nabaddana uu hogaaminayo madaxweyne Trump ayaa haatan u muuqata inay si weyn Israa'iil isugu mutaxaysa inay ka hor yimaadaan. Netanyahu ayaa khudbadu telefishinka ka sii daayay waxa uu ku sheegay in aysan Israa'iil aqbali doonin in ay shaqeeyaan dhismahaasi ilaa iyo inta uu leeyahay hubka laga dhigi doono kooxaha Falastiiniyiinta. Marka laga yimaado dhinacaasi waxa uu dhinaca sidoo kale degnin u jeediyey Iiraan waxaana uu yidhi isagoo khudbadaasi ka hadlaya dowladdeedu waxay diyaar u tahay inay tallaabo ka qaado Dahraan haddii ay isku daydo inay Israa'iil weerarto iyadoo aayatullah qalad uu samaynayaan buu yidhi in ayna soo weeraraan oo ay isku dayaan tallaabadiisa inay qaadaan waxay heli doonaan jawaab aan xitaa la qiyaasi karin ayuu Netanyahu ku tilmaamay hadalkaasi uu ka jeediyey telefishinka islamarkaana uu ku dhaliilaya dowladda jamhuuriyadda islaamiga Iiraan. Marmii ugu dambeeyay Israa'iil waxay bilowday inay goodin xoog leh miiska soo saarto taasi oo aan la ogeyn hubka iyo weliba waxyaabaha ay sida gaarka ay isugu hadlaynayso. Khiyaarta inala socotay tabinta qaybtan iyo barnaamijka Qubanaha Barrow Show caawa intaa ayaan ku gabagabeynayaa. Waa Cabdicasiis Barrow idile nabadgelyo.